xamar dhaxal uma helin dikorkeeda lagu qubo xamar dhaxal umay helin in dadkeeda lagu dhibo. kusoo dhawaada warbixinaynu ku umleecsanayno isla markaasina dub ugu xasuusanayno qarixii lixaadka lahaa ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya sanadkii 2017 aynu ku bilownay 14 Oktoobar sanadkii 2017 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qarax lagu hoobtay isla markaasina ahaa mid galaaftay nafaha boqolaal Soomaali ah. qaraxaasi ayaa xasuus ku reebay qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool Muqdisho waxaana jiray dad ilaa hadda la laayay nolol iyo geeri loona badinaya inay dhinteen waxaana suurtagal ah in dib loo dayactiray dhismayaashii ku burburay qaraxaasi waxaana baaba'ay raadadkii muuqday ee uu reebay qaraxaas balse saameyntii uu kaga tegay ayay weli dad badani la nool yihiin. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 500 oo qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 600 oo qof oo kale. waxaa sidoo kale burburay dhismayaashii wadada saarnaa. qaraxaasi ayaa dhacay xilli iska sooba aad u mashquul badnaa waxaana jiray samxad weyn oo dhanka gawaadhida iyo weliba dhanka dadka hareeraha wadadana waxaa buux dhaafiyay isla mar ahaantaasina dhoob dad wadata ah iyo kuwo kaloo socday. dad badan ayaa xilligaasi aad ugu jahwareersanaa waxaanay raadinayaan xogta qofkooda waxaana jiray kuwo badan oo dhaawac ama dhimasho midna aan lagu haynin. gaari nooca xamuulka qaada ayaa galab sabti ah xilli salaada casar ku beegnayd 14 Oktoobar 2017 ku qarxay iska sooba. dowladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda qaraxaasi dusha u saartay ururka Al-Shabaab kuna eedeysay inay ka dambeeyeen qaraxaasi inkastoo kooxdaasi aysan ilaa hadda sheegin mas'uuliyad. dadkii ku dhintay ayaa isugu jiray qaraxaasi dhalinyaro, odayaal, ganacsato, arday iyo weliba noocyada kala duwan ee bulshada. sanad kadib Oktoobar 2018 mid ka mid ah raggii loo haystay qaraxaasi oo makaxabada dul ay ku xukuntay ayaa lagu toogtay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ahaa madaxweynihii waqtigaasi oo 19 Oktoobar la hadlay shacabka Muqdisho waxa uu ku hanjabay inay ka jawaabi doonaan weerarkaas. wuxuuna madaxweynuhu yidhi haddii aynan ka jawaabin waxa maanta ay sameeyeen dhibaatadu way sii soconaysaa ilaa hilbaheena aan ka urursano dhulka ma dulqaadanaysa midaasi ayaa uu yidhi Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii Soomaaliya ee waqtigaas. intaas ayaynu saaxiibayaal ku saafmeerayna warbixintaasi kooban aynu ku milicsanaynay isla markaasina aynu dib ugu eegaynay qaraxii lixaadka lahaa ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya 14 Oktoobar sanadkii 2017 waxay idin soo jeedinayay la socodsiinaya anigoo ah Yaxya Muuse Ibraahim Yaxya Nairobi. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.